بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. halkan waxaan ka galaynaa casharkii koobaad ee kitaabka leeraa ad-durarul bahiyya oo uu leeyahay sheekh abubakar bin maxamed shata. waxa weeye kitaab yar laakiin wax badan oo axkaamta islaamka aan ka baranayno cibaadadeeni aan ku saxayno ilaahay nagu anfaco. bismillaah ilaahay magaciisaan ku bilaabay alli arraxmaani naxariista guud ku naxariisanayay oo adduunka markii la joogo muslimin gaal u naxariisanayay. alli arraxiimi naxariista gaarka ku naxariisanayay oo aakhira markii la taga muuminiinta kaliya ilaa u naxariisanayay. alxamdu mahad lilaahi ilaahay baa iska leh xaqa xamdihi xamdigiisa oo runtaahuna ilaahay mahadsan yahay. alxamdu mahad lilaahi ilaahay buu u sugnaaday ama ilaahay bay u sugnaatay xaqa xamdihi xamdigiisa oo dhabta ah ayaana ilaahay u sugnaaday. wa salaatuhu ilaahay naxariistiisa naxariis kordhintiisa iyo wa salaamuhu ilaahay nabadgelyo kordhintiisu calaa sayidinaa sayidkeeni korkiisa ha ahaadeen muxamedin nebi muxameda. oo waxaa nabiga loo dalbaya waa siyaado iyo kordhin ee ilaahay nabigiisa oo u naxariista waana nabadgeliyey. sayid marka nebiga waa la dhihi karaa, waa anagii wax badan kasoo sheekaynay inta axaadiid saxiixa ku timid oo dad kale xataa laleeyahay oo bukhaari ay xataa ku taallo in uu leeyahay abubakrin sayidunaa wa actaqa sayidana, xataa sayid cumar uu leeyahay abubakar waa sayidkeeni wuxuuna xoreeyay sayidkeeni oo bilaala iyo axaadiid fara badanaan kasoo hadalnay ina bni hada sayidun iyo qumuu ilaa lisayidikum iyo qur-aankana ay ku jirta nebi yaxye oo ilaahay leeyahay sayid wa sayidan waxasuura wa nabiyan min asaalixiin. marka sayid qofka waa la dhihi karaa qofkii dadka markaas wax wanaaga dheer, waa taytal meesha loo isticmaalo hadda. annabiyi ee nebiga ahaa wa calaa aalihi nebiga alkiisa allaha u naxariisto wa saxbihi nebiga asxaabtiisa allaha u naxariisto min bacdihi nebiga gadaalkiisa allaha u naxariisto. amaa bacdu intaa kadib falaa khafaa'a qarsooni ma ahaanin calaa dii qalbin qalbi mid u saaxiiba korkiisa qalbigaasoo saliima nabad galay. macnaha qof caqli wanaagsanba leh kama qarsoona, iyo wa fikrin fikir qof u saaxiiba fikrad iyo fakar fikrigaasoo mustaqiimin toosan qof leh kama qarsoona. anna sharafa alcilmi cilmiga sharaftiisa laa yunkaru inaan la inkiri karin, kama qarsoono qofna taas. wamaa kii warada soo arooray fii fadlihi cilmiga fadligiisa kusoo aroorayna laa yuxsaru inaan la koobi karin qof caqli fiican leh ama fikir toosan leh kama qarsoona. qaala allahu tacaala ilaahay wuxuu yidhi qul waxaa tiraa nebi maxamedow hal yastawii ma siman yihiin alladiina kuwii yaclamuuna wax yaqaanay iyo waladiina kuwii laa yaclamuuna aan waxba aqoon. marka ayaddu hadda dad gaarahay kusoo degtay markii, laakiin waa caam ka bacdi. alcibratu bicumuumi lafdi laa bikhusuusi sabab. waxa weeye ma sinna su-aashu waa macnaha miyay siman yihiin dad wax yaqaana iyo dadaan wax aqoon? ma sinna. wa qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi yarfac illaahu ilaahay wuu kor yeelayaa alladiina kuwii aamanuu alla rumeeyay oo minkum adinka in ka mid a. muuminiintu waa ka sarreer marka ciddii aan muuminiin ahayn kow. haddana muuminiintii dhexdeeda waladiina kuwiina ilaahay waa kor yeelayaa uutuu la siiyey alcilmi cilmiga la siiyey darajaatin uu u kor yeelaya. oo waxa weeye darajada ilaahay kor yeela kuwa cilmiga la siiyo ay ka sarreeyaan muuminiintii kale oo aan cilmiga lahayn. wa qaala rasuulullahi sala allahu calayhi wasalam ilahay rasuulkiisa wuxuu yidhi dalabulcilmi cilmiga dalabkiisa iyo in la raadiyaahay oo la bartaahay fariidatun waa farad iyo waajib calaa kulli muslimin qof kastoo muslima korkiisa ayuu waajib ku yahay. wa muslimatin iyo gabar kastoo muslimada. xadiidku wuxuu ku joogaa calaa kulli muslimin, xadiidka ibnu maajaha warinaya. wa muslimatintan macnaha ayaa dhammaystiraysa maahane xadiidka kama mid ahaan. marka qof kastoo muslima cilmigu waa ku waajib inuu barto. wa qaala sala allahu calayhi wasalam ilaahay rasuulkiisu wuxuu yidhi man salaka qofkii qaada dariiqan wado dariiqaasoo yaltamisu uu ku raadinayo fiihi wadada dhexdeeda cilman cilmi uu ku raadinayo sahala allaahu ilaahay wuxuu u fududaa lahu qofkii dariiqan wado dariiqoo muusilan ilaljannati jannada gaarsiinaya. qofkii wado qaada uu cilmi ku raadinayo wado jannada gaarsiidaa ilaahay u fududayaa. macaanida lagu fasiraa waxaa ka mid ah asbaabtii jannada uu ku geli lahay qofkan loo fududeeya.
ama waxaa kaloo la yidhaahdaa hadhow wadada jannada ilahay u fududaynaya. marka qof kastow cilmiga inaad baratid waajibay kugu tahay saa axkaamtaadii ee cibaadadaadii u saxdid. inta cibaadada qofka uu ku saxayo waa fardu cayn. qof kasta sida salaada looga rabaa salaada cilmigeeda looga rabaa, sida soonka looga rabaa soonka cilmigiisa looga rabaa. ma ahan macnaheedu inuu qof u tala saarto. wixii kasoo haro markaas siyaado ah markaa fardu kifaaya oo dadkii kale in laga helo qayb ka mid a ay waajib tahay. wacan cuthmaan waxaa laga wariyay ibnu cafaan radia allahu canhu ana rasuula allahi sala allahu calayhi wasalam ilaahi rasuulkiisa qaala inuu yiri yaa laga wariyey yushaficu llahu ilaahay waa ka shafaaca aqbalaa yowma alqiyaamati maalinka qiyaamo 3 qolo ayaa ilaahay shafaacadooda aqbalaa. alambiyaaa ambiyadii ilaahay shafaacadooda aqbalaa hadday shafeecaan, uma alculamaa culamadii ayaa ilaahay shafaacadooda aqbalaa hadday ergeeyaan, uma shuhadaa shuhadadii dadkii shahiiday ayaa ilaahay ergadooda aqbalaa haddii ay dadkooda u ergeeyaan oo ilaahay u weydiiyaan. marka qofku waa inuu noqdaa culamadii, marka inuu noqdo dadkaas laga shafeeco aqbalaya uu ku biiro hadda looga jeedaa. wacan abi hurayrata waxaa laga wariyay radia allahu canhu abi hureyre waxaa laga wariyay iyo wa abi darin asxaabiga leedah radia allahu canhumaa labadooda allah ka raali noqday qaalaa inay yidhaahdeena laga wariyay baabun hal baab, baabkaasoo min alcilmi cilmiga ka mid a, baabkaasoo natacalamuhu aan baranayno ayaa axabu la jecel yahay ilayna annaga naloo jecel yahay min 1000 ragcatin 1000 ragco, macnaa ragcooyin oo 1000 ah nala kaga jecel yaho tadawucan sunno ah. 1000 ragco oo sunno ah waxa weeye oo aan baranno hal baab oo cilmi ah ayaa 1000 ragco sunnaha tukano hal baab oo cilmiya ayaan ka jecelnahay yidhaahdeen. maxaa yeelay halkaas baab nafcigiisu waa gudbaya, ummadda dhan u gudbaya, ummadda dhana u barata. laakiin 1000 ragco aduu kugu egi maanta haddaad khayr samaydid oo intaasoo khayr samaydid, cawdhana dikri kusoo jeeday, cawdhana khayr kusoo jeeday, cawdhana wax kale kusoo jeeday, waxa weeye aduu kugu egi khayrkaas. laakiin haddaad cilmi barasho kusoo jeedid adiga iyo ummadaad u barata. laakiin maanta waxaa moodaa dhibaatada dhacday in oo dadkeeni ay faafinayaan kaliya cibaadadii qofka khayrkeeda uu ku ekaa, tii kalena aan maaragtay aan cidna u aaba yeelayn. burburka waxaa nagu keenay ka midta. marka haddii maalanba la isu yimaado oo meel lagu qabto wacdi, dikrigii kaliya dadkii soo gudbinayaan, mashaaikhdii wacdigoodii oo dhan qof soo gudbinaya ma jirto. marka waxay ka mid tahay waa wacyiyariyay ka mid tahay. khayrkaas in lasoo gudbiyo wax dhiba kuma jiraan, laakiin kii kasii muhiimsanaa oo ummadda anfacayay waxa weeye cid soo gudbisahay waa yarta, 100kiiba halaa soo gudbiya. wa qaala imaamunaa imaamkeenu wuxuu yidhi ashaaficiyu shaafici ahaa radia allahu canhu allah ka raali noqday al-ishtiqaalu ku mashquulid bilcilmi cilmiga lagu mashquulahay afdalu ayaa ka wanaagsan min salaati naafilati sunnadii salaadeedii. cilmiga ood ku mashquusho ayaa salaad sunnaa ka wanaagsan. ku mashquuliddaa laga hadlaya ee cilmiga ma waxaa laga hadlaya. marka maxaa yeelay cilmiga ummadiiya qofkan u baranaya, naftiisuu jahliga ka suulinayaa, kabacdina ummadii ayuu jahli ka suulinayaa, shareecadii nabiga ayaa baaqi ahaanaysa. wa qaala imaamu shaafici wuxuu yidhi laysa bacda alfaraa'idi faraa-isha ka bacdi ma ahaanin afdalu wax ka wanaagsan min dalabilcilmi cilmiga la barashadiisa. markii faradka halkan aad dhigatid oo salaadii iyo soonkii wixii farad lagu laca meelo saartid, waxaa ka dambeeya cilmiga ugu wanaagsan. hadda cilmigaas laftigiisu waa cilmigii siyaadada ahaaye kii aad ku saxayday cibaadada kaasi faraa-ishu ku jira. waclam ogow ana ajala alculuumi culuumta kan ugu weyn qadran xagga qadarka iyo sharafta, wa acdamahaa kan ugu weyn fakran xagga faanka iyo ammaanta iyo wanaagga cilmulfiqhi fiqiga cilmigiisa inuu yahay ogow. cilmigii almustanbadu lagala soo baxay min alkitaabi kitaabka qur-aanka iyo wa sunnati sunnadii rasuulka lagala soo baxay. cilmigii alkaafilu kafaalo qaadayoo ballan qaadayay liman ruux u kafaalo qaadayay qaama istaagay bihi cilmigaas calaa wajhihi sidii uu ahaa ugu istaagay oo u barto ugu dhaqmay bidukhuuli ljannati janno gelitaankeeda u kafaalo qaaday. allahu akbar. limaa kii dartiisuna ugu kafaalo qaadayaa fiihi cilmiga dhexdiisa ku sugan oo min annafci nafcigiiya alcaami guud ya ama limaa kii ayuu culumta ugu sharaf badan yahay. limaa kii dartiisu culumta ugu sharaf badan yahay
fiihi cilmu fiqiga ku sugan oo min annafci nafcigii alcaami guud oo waxa weye qofku hadduu fiqiga barto nafci caamahu leeyaho ummadii o dhan uu anfacaya wax kasta u baahan yihin ka saxaya iyo wa tamayuzil xalaali xalaashio la sooco ah min alxaraami xaaraamta laga sooco fiqiga lagu kala soocay waxaan xalaal iyo waxaan xaraam maxaa yeelay wixii ku jiray fiqi qur-aanka iyo xadiidta isku meel la iskugu keeno adiladoodii wata markaasaa meeshii aayad qur-aana laga soo qaatay ama xadiid saxiixa laga soo qaatay waa waxa raajixa ah oo xooga badan wixii oo xadiid daciifa laga soo qaatay waa waxa oo qiilka iyo qowlka ah oo la sheegay marka kulli meelay haystaan fiqiga dhan meelu haysta ma ahan dadka waxaa laga dhaadhiciyay inuu qowlu sheekh yahay laakiin dadka hadda maadaama jahliga iska batay waxaa la rabaa loo sheegaya qaala wuxuu yidhi sufyaanu bnu cuyaynata radia allahu canhu sufyaan bnu cuyayna wuxuu yidhi lam yucta lama siinin qof axadun qof bacda anubuwati nebinimadka kadib lama siinin shay-an shay shaygaasoo afdala ka wanaagsan min alcilmi cilmigii iyo walfiqhi fiqiga ka wanaagsan qof la siiya ma jirto bacda anubuwa fa nas'alu llaha ilaahay waxaan weydiisanaynaa an yufaqihanaa inuuna fahansiiyo fi diini diinta inuuna fahansiiyo oo wayaftaxa uu furo calaynaa korkeenna futuuxa alcaarifiina kuwa alla yaqaano oo si runa u gartay wixii ilaahay uu u furay ilaahay noo furo bijaahi khayri alambiyaai ambiyada nabiga ugu khayrka badnaa jaahiisa iyo wanaagiisa iyo sharaftiisana noogu furo walmursaliina rususha kii ugu khayrka badnaa jaahiisana uu noogu furo oo uu nagu fahansiiyo waali nabiga aalkiisana inuu ilaahay jaahooda noogu furo iyo wasaxbii asxaabta jaahooda inuu noogu furo ajmaciina dhammaantood faslun min calaamaati liimaani iimaanka calaamadihiisa waxaa ka mid ah alyaqiinu rumayn iyo yaqiin oo hubaal iyo watasdiiqu rumayn waa noo imaan doona sharxooda jaa-a waxaa yimid fi lxadiidi xadiid waxaa ku yimid alxamdulilah can inabiyi nabiga waxaa ka yimid sala allahu calayhi wasalama annahu nabigu qaala inuu yidhi idaa araada allahu ilaahay hadduu la doono bicabdihi addoonkiisa khayran wanaag hadduu la doono salaka wuxuu qaadsiiya hooggeliya fii qalbihi qalbigiisa alyaqiina yaqiintii iyo watasdiiqa rumayntii yaqiintu wixii hubaal ah waidaa araada ilaahay haddii uu doono bihi addoonkii sharan shar hadduu la doolana salaka wuxuu geliyaa fii qalbihi qalbigiisa alriibata shaki uu ilaahay geliya aayadaana xadiidkaas macnihiisa cadaynaysa oo raja xoojinaysa wa qaala tacaala qaala allahu tacala ilahay wuxuu yidhi faman yurid illaahu ilaahay qofkii uu la doono an yahdiyahu inuu hanuuniyo qofkii ilaahay uu doono yashrax ilaahay wuxuu u waasiciyaa sadrahu xabadkiisa lil islaami islaamkii u waasiciyahoo uu ku raaligeliya islaamkii ku qanacsanaadaho ku faraxsanaadaho qalbigiisu aqbalaa waman yurid qofkii ilaahay uu doono an yudilahu inuu lumiyo baadiyeeyana yajcal sadrahu xabadkiisa wuxuu ka yeelayaa dayiqan ciriiri daa dayiqin ciriiri mid u saaxiiba xarajan daa xarajin ee dhib u saaxiibo waa ku dhibtoonaya wixii shaki waswaas a qabsanaya waqad ittafaqa waxay isku raaceen ahlu sunnati sunnada ehelkeedii dadka ahlu sunna waljamaaca la yidhaahdo waxay isku raaceen calaa ana almu'mina ruuxa muuminka alladii muuminkaasoo yuxkamu la xukminayo calayhi muuminka korkiisa biannahu muuminkaasi min ahlilqiblati qiblada ehelkeeda inuu ka mid yahay lagu xukminayo oo qofka waa ahlu qiblo qofka la leeyahay oo walaa yukhalladu aanan lagu waarinayn fi naari naarta aan lagu waarinayn haddiiba naarta la geliyo laa yakuunu inuusan ahaanayn ayay isku raaceen ilaa man ruux moogiye mankaasoo ictiqada aaminay biqalbihi qalbigiisa ku ictiqaadiyo ku aaminay diina alislaami islaamka diintiisa aaminay ictiqaadan aaminitaanna aaminay ictiqaadkaasoo jaasiman go-an qof diinta islaamka qalbigiisa ku aaminay aaminitaan go-an oo aan shaki ku jirin qofkaas ayaa waxa weeye ahlu qiblo ah oo aan naarta lagu waarinayn haddiiba naar la geliyo maalinka qiyaama ictiqaadkaasoo khaaliyan ka maran mina shaki ka maran oo aan wax shakiya ku jirin
oo wanataqa ku dhawaaqay bishahaadatayn labadii shahaado ku dhawaaqay. وعن أمير المؤمنين waxaa laga wariyay cumar bn الخطاab رضي الله عنه qaala inuu yiri baynamaa waqti naxnu anagu juluusun aan fadhino oo juluusun jaalisuuna kuwa fadhiya anaha cinda rasuulillahi sala allahu alayhi wasalam. xadiidka 40 wada taqaani wey. ilaahay rasuulkiisa agtiisa fadhiya daata yowmin maalinna nabiga ag fadhiya id waqtigaas dalaca waxaa soo baxay oo bud soo yiri calaynaa korkeena rajulun nin ayaa soo baxay. rajulkaasoo shadiidu bayaadi thiyaab dharkiisa cadaankiisa uu daran yahay aada u dharcad. shadiidu sawaadi shacr tintiisa madowgeeduna uu daran yahay aada u tin madow oo nadiif ah. oo jumladan dambaa sharxayso oo laa yuraa aan lagu arkayn caleyhi rajulka korkiisa atharu safari safaraadkiisa. macnaha ninkan dharkiisuna aada u cad yahay, tintiisu aaday u madowday, hadda meel kasoo baxaa moodaa kurdhow uu kasoo baxo kasoo labistay. wax safaraadkiisaba kama muuqdaan, tintiisu ma basaasna, dharkiisu ma wasaqoobin. walaa yacrifu mana garanayo hu rajulkaas mina annaga xaggeena xaalu ka ahday axadun qof ma yaqaano. fastamara waa uu daa'imay calaa mashihi socodkiisa xataa jalasa ilaa uu fariistay ila nabiyi sala allahu calayhi wasalam, nabiga uu kala fariistay. fa asnada waa uu tiiriyey rukbatayhi rajulkii labadiisa jilibuu tiiriyo ilaa rukbatayhi nabiga labadiisa jilibuu ku tiiriyo waa iska hor keena, waa hortii nabiga soo fariistay. wawadaca waana uu dejiyey kafayhi labadiisa calaacalood calaa fakidayhi labadiisa bawduu ku dejiyo nabiga hortiisu inta fariistay oo nabiga jilbihiisa jilbaha ka hor keenay ayuu calaacalihiisa wuxuu saartay labada bawdo. oo markaas waxa weeye sida qofka ardayga uu shiikiisa u hor fariisto uu barayay, marka gacnihiisi bawdooyinkiisu saartay. saas waa marka sida aadaabta ah oo qofka ardayga uu macalinkiisa u hor fariisto. ama waxaa leedaha calaacalihiisa wuxuu saartay bawdooyinka nebiga oo cajarada nebiga. taasna waxa weeye waxay tusinaysay waa sayid jibriile nebiga siduu saaxiib ula yahay uu cadaynay oo iskugu dhow yihiin. markaasna nebigu dul saartay gacnihiisa. wa qaala wuxuuna yiri yaa muxamedu nabi muxamedow, nabiga lama ogola muxamed kali in loogu yeero, qur-aanka ilaahay waa ku diiday. laakiin malaku jibriil waa mucalinkiisii, ama waxaa la yidhaahdaa intii aan lasoo dejin kali ka hor ayay ahayd. laa tajcalu ducaaa rasuuli baynakum ka ducaai bacdikum bacda, intaan lasoo dejina aheeda la yidhahda. nabi maxamedow akhbirnii ii sheeg, iiga waran can ilislaami, can xaqiiqati lislaam, islaamka xaqiiqadiisa iga waran. faqaala rasuulullahi sala allahu calayhi wasalam, ilahi rasuulkiisu wuxuu yidhi al-islaamu islaamku xaqiiqadiisa haddaa rabtid an tashhada inaad qirtid weeye an laa ilaaha ilaah kale inuusan jirin ila allahu ilaahay ma ahane. ko wa ana muxameda nabi maxamed rasuulullah ilahi rasuulkiisa inuu yahay qirtid wey, waa tawxiidka intaas. wa tuqiima salaata, salaadii inaad oogtid weeye oo oogitaanka waxa weye la taajiyo shuruuddeedii arkaanteeda loo dhammaystiro. arkaanu islaamkii nagu baraa nabigu maasha caleyhi salaatu wasalaam. wa tu'tiya zakaata, zakadiina inaad bixisidoo dadkii mudnaa siidid. wa tasuuma ramadaana, ramadaankiina inaad soontidoo sidii uu ahaa u soontid. wa taxuja albeyta, beytkii iyo kacbadiina inaad u qasadid oo soo xajisid in istatacta haddaa awoodid ilayhi beytka sabiilan wada ahaan haddaa u awoodidoo waxa weeye aad saadkii iyo daabadii aad helaysid wixii aad gaadiidka raaci lahayd. macnaha sabiilanta nabiga markii la weydiiyay saas ku fasira caleyhi salaatu wasalaam, waa wixii uu qaado lahaa ama dadka uga taga lahaa iyo wixii uu raaci lahaa qarashkoodii. qaala wuxuu yidhi sadaqta, waad run sheegtuu yidhi ninkii. markuu nabigu weydiiyey ninkii aan la aqoonayn, nabigu wuxuu yidhi runtaa wey. marka hore nin arday su-aal u baahan iska dhig. facajibnaa waan la yaabnuu yidhi cumar minhu rajulkan yas'aluhu, nabigu weydiinaya kal jaahili sidii qof aan waxba aqoon, wayusadiquhu waana u rumaynaya kal caalimi sidii qof yaqaana wixii. qaala wuxuu yidhi rajulkii fa akhbirnii iiga waran can iliimaani, can xaqiiqati liimaan, iimaanka dhabtiisa. qaala nabigu wuxuu yidhi an tu'mina, haddana arkaanulislaam halkaan laku baraya. qof kastaa waa inuu barta arkaanulislaam iyo arkaanuliimaan. qof sax maan qof weyn inuu aqoon waayo iyagoo midna 6 midna 5. qaala wuxuu yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam an tu'mina inaad rumaysid weeye billaahi ilaahay aad rumaysid, wa malaa'ikatihi malaa'igtiisa inaad rumaysid 2, wa kutubihi ilahay kutubtiisa inaad rumaysid 3, wa kutubihi ilahay kutubtiisa inaad rumaysid 3,
wa rusulihi ilaahay rusushiisa inaad rumaysid 4 walyowmi maalinkii inaad rumaysid alaakhiri dambeeyey 5 wa tu'mina inaad rumaysid bilqadari qadartii khayrihi qadarta mideeda wanaagsan aduu sidaa rabti kugu socota iyo wa sharihi midda xunba oo markaas kaa soo horjeeda labadaba inaad rumaysid ilaahay xaggiisa ka yimaadeen asaga labadaba abuura ilaahay intaas way 6daas way waa ilaahay la rumeeyo malaa'igtoo la rumeeyo kutubtoo la rumeeyo rasuushoo la rumeeyo maalinkii aakhiro iyo qadartii 6daas qaala rajulkii wuxuu yidhi sadaqta run ayaa sheegtay arkaanul iimaanna waa intaas qaala wuxuu yidhi rajulkii akhbirnii iiga waran canil ixsaani samafalka iyo wanaagga ixsaan maxaa leedahay qaala wuxuu yidhi nabigu an tacbud allaha ilaahay inaad caabudid wey ka-annaka sidii taraahu inaad arkaysid sidii adigu arkaya oo kale ilaahay u caabud marka haddaad ilaahay inaad arkaysid u caabudid wax dembiya ma samaynaysidba ilaahay ku hortaagan fain lam takun haddaada ahayn taraahu ilaahay inaad arkaysidoo macnaha aada gaarin heerkaas oo sidii inaad arkaysid oo kale inaad u caabudid heerka haddaada gaarin fa innahu ilaahay yaraaka wuu ku arkaya taas ogowo macnaha dadaal ayana in lagu arka ogow dembigii iska ilaali uma intalaqa ninkii waa tegay arrajulu ninkii waa tegay asaa-il wax weydiinayay fa qaala anabiyu sala allahu calayhi wasalam nabigu wuxuu yidhi yaa cumaru cumar waa waqti ka bacdi atadriib ma garanaysaa man isaa-ilu kan wax weydiinaya ninuu yahay su-aalo kalea lasii socday xadiidka hadda intii maqsuudkeena naloo sheegaya oo iimaanka iyo ixsaanka iyo islaamka waa 3 kitaab ka hadli doono maxaa yeelay iimaanka macnaha 5 horo arkaanu islaamka markii laga reebo shahaadada 4 kale oo salaada iyo zakada iyo soomka iyo xajku waa fiqhiga cibaadaadka waxa looga hadlo shahaadadii iyo 6 arkaanul iimaanna waxa weeye waa caqiidadii waxa weeye 3 ixsaankuna waa taskiyadii iyo qulubtii sidii loo dahiri lahaa marka ninka wax weydiinaya ma garanaysaa uu yiri cumar qaala wuxuu yiri sayd cumar allahu ilaahi iyo rasuulkiisa aclamu qaala nabigu wuxuu yiri fa innahu saa'ilkii ninka wax weydiinayay jibriil waa jibriilo ataakum yimid yucallimukum xaalu idin barayo yimid diinakum diintiina idin barayo arrimaha diintiina macnaha nabiga baro hadda sheegay su-aalahan ka jawaabay ee malaku jibriil sabab u noqday maadaama isaga uu weydiiyey qaala alculamaa xadiidka marka waa dhammaaday soo lasoo gaabiyey qaala alculamaa culammadii waxay yidhaahdeen alladiina culummadaasoo hum ayagu warahatul ambiyaa ambiyada dhaxleen man ataa qofkii yimaada bil iimaani iimaanka la yimaada iyo wal islaami islaamkii haddaba kasoo sheekayna iimaan iyo islaam waxay yihiin iimaanku waa hogaansanka ilaahay loo hogaansamo la rumeeyo qalbiga hadda arkaanul iimaan waaba soo marnay islaamkuna waa hogaansanka muuqdo tawxiidka waa lagu dhawaaqayaa salaadii waa la samaynayaa zakadii waa la samaynayaa soonka waa la samaynayaa xajka waa wax la samaynaya oo muuqashada hogaansanka ilaahay hogaansatay muuqashada kuwa kalena hadda waa rumayn oo qalbiga jamiican xaalay yihiin dhammaan qofkii la yimaado labadaas fa huwa mu'minun waa mu'min kaamilun iimaankiisu u dhammaystiran yahay mu'min buuxa weeye kaamilun iimaankiisu u buuxa waman tarakahumaa labadooda qofkii ka taga jamiican xaalay yihiin dhammaan fa huwa kaafirun waa gaal kaamilun gaalnimadkiisu u buuxo labadaba hadduu ka tagay waman tarakal islaama islaamka qofkii ka tagay waxdaw xaaliyo kii keligiisa uu ka tago qofkan ilaahay rumaysan yahay iyo malaa'igtii kutubtii iyo rusushii maalinka aakhiro qadartii laakiin salaadii ma tukanayo soonkii ma zoomaayo waxa weeye mana diidana oo salaadii soonkii waa ogolii xidhan fa huwa mu'minun waa mu'min naaqisaho waxa weeye iimaankiisu naaqis maan hadduusa diidin laakiin hadduu diido waa gaalkaas hadduu salaadii diido yira lagma leh waman taraka qofkii ka taga al iimaana iimaankii waxa weeye salaadii iyo soonkii xajkii zakadii samayna laakiin ilaahayba ma rumaysna hoos waxdaw xaaliyo kii keligiisa iimaan ma leh cibaadadii kor ula imaana fa huwa munaafiqun waa munaafiqkaas waa xun yahay marka arkaanul iimaankii ilaahay la rumeeyo malaa'igtoo la rumeeyo kutubtoo la rumeeyo rusushoo la rumeeyo maalinka aakhiroo la rumeeyo qadartoo la rumeeyo 6daas ahayd maxaa looga jeedaa rumayntaas taasaa sheekhu si kooban mid kasta noogu sharxaya wa macna aliimaani rumaynta macnaheedu billaahi ilaahay la rumeeyo ictiqaadu annahu ilaahay
waaxidun keligiis inuu yahay oo la aamino la ictiqaadiyo weeye laa nadiira wax u dhigmoo la midana lahu ilaahay uusa u sugnaanin cid u dhigantaa fii daatihi daatadiisa ilahay wax ugu dhigmaahi aysa jirin wa sifaatihi tilmaamihiisa iyo sifaadka uu leeyahay awoodiisa iyo cilmigiisa wax ugu dhigmaahi aysa jirin wa afcaalihi afcaashiisa iyo waxyaalaha ilaahay uu sameeyo iyo abuurkiisa cid ugu dhigantaa inaysa jirin oo la aamino wey waayahay wax la mida ma jiraan walaa shariika cid la wadaagta lahu ilaahay fil uluhiyati ilaahnimadka la wadaagtaahina ma jirto hadday rabtayasa u dhigmine waxa ilaahnimadka la wadaagaahayna ma jiraanba ilahay keligiisa ilaah xaq lagu caabudo been hadda wax lagu caabudo waa jiraan kuwaas maaha ilaah taas waa rumaynta macnaheeda ilaahay la rumeeyo wa macnal iimaani rumaynta macnaheeda bilmalaa'ikati malaa'igta la rumeeyo ictiqaadu annahum malaa'igtii mukramuuna kuwa la karaameeyay inay yihiin oo la aamino weeye laa yacsuuna allaha ilaahayna aysan caasin ma amarahum wixii ilaahay uu amray aysan ku caasin oo wuxuu faray ilaahay ma diidaan wayafcaluuna waana ay sameeyaan maa yu'maruuna waxa la faro qur-aanku siduu sheegayayba sida aayaddu sidaan oo kale ah saadiquuna haddana ay ku run sheegayaan fiima akhbaruu waxa ay ka warramayaan bihi maag waxa ay soo gudbinayaan oo malaa'igtu ay keenayaan oo sheegayaan oo ilaahay xaggiis ka keenana waa ku run sheegaan wa macna aliimaani rumaynta macnaheeda bilkutubi kutubtii la rumeeya ictiqaadu annahaa kutubtii kalaamullaahi ilaahay kalaamkiisii inuu yahay inay tahay oo la aamino weey kalaamkii al azaliyu ee horreeyey kalaamkii alqaa'imu taagnaa bidaatihi asagu daatadiisa u taagnaa kalaamkii almunazahu la hufay oo la dahiray can ilxuruufi xuruufiya wal aswaati aswaadka laga dahiray macnaha ay tusinaysaa wa anna kullamaa shay kasta macnaha xuruuf waa erayadan kala aan naqaano iyo aswaad dhawaqyaasha macnaha ilaahay qur-aankiisa uu tusinayo wa anna kullamaa shay kasta maagaasoo tadamanathu kutubtii ay kulansatay xaqun xaq inuu yaho la aamino wey wa anna allaha ilaahay tacaalaa sha'nuhi anzalahaa kutubtii inuu soo dejiyey oo la aamino wey calaa bacdi rusulihi rusushiisa barkeeda uu ku soo dejiyey bialfaadin erayana uu kula soo dejiyey alfaadaasoo xaadihatin soo korortay oo markaan dhiri kalaamkan ilaahay xuruuf iyo dhawaqyuu ka hufan yahay kalaamka ilaahay oo qadiimka azaliga wey laakiin alfaad oo xaaditha oo erayadan qur-aanku ku qoran yaho lagu akrinayo waa kii ilaahay uu kula soo dejiyey rususha saas way macnaa ogow kaas alfaada xaadidka marka waa midda lagu akrinayo wa macna aliimaani iimaanka macnihiisa rumaynta macnaheedu birusuli rususha la rumeeya ictiqaadu ana allaha ilaahay arsalahum inuu ayaga soo diray oo la aamino wey ila alkhalqi makhluuqa uu usoo diray oo wanazahahum ilaahayna uu ka hufay oo ka dahiray can kulli caybin caab kasta uu ka dahiray iyo wa naqsin nusqaan kasta uu ka dahiray fahum rusushii macsuumuuna kuwa la ilaaliyey weeye qabla nubuwati nabinimadka ka horaa la ilaaliyo dembi laga ilaaliyey iyo wa bacdaha nabinimadka ka bacdi a dembi laga ilaaliyey wa macna aliimaani rumaynta macnaheedu bilyowmi maalinkii la rumeeyaa al aakhiri dambeeyey waa soo socdaa jawaabtii maxaa laakiin maalin aakhire la yaraha soo dhexgeliya sheikhiyo wa huwa yowmul aakhiro min almowti dhimashada laga bilaabo weeye ilaa aakhiri maa shay aakhirkiisa laga gaaro maagaasoo yaqacu dhacaya yowmal qiyaamati qiyaamada maalinkeeda dhacaya laga gaaree oo qofkii dhintay qiyaamadiisa waa bilaabatay markaa dhimatid laga bilaabo ilaa aakhirada waxa dhacaya macnaha laga gaaro intaas qiyaamadii uu la joogaahe waxa weye maalinkaas rumaynta la rumeeya macnaheedu waxa weye ictiqaadu wujuudihi maalinka qiyaamo jiritaankiisa horta in la aamino wey kow waictiqaadu maa shayna in la aamino wey ishtamala uu kulansaday maalinka qiyaamo oo ku dhex jiray caleyhi maalinkaas oo min su-aalil malakayni labadii malag su-aashooda ah qabrigay kugu weydiinaan ilaa dhimashadaadu ka bilowda qiyaamadii iyo wa naciimil qabri qabriga la isku nicmeeyo ah qofkii fiican aw cadaabihi qabriga lagu cadaabo ah laysku cadaabo qofkii xun ilaahay ha noogu nicmeeye
walbacthi soo bixintiiya oo qofka hadhow dadka la isoo bixinayo, waljazaa'i abaalmarintiiya oo qof kasta camalkiisa lagu abaalmarinayo, walxisaabi xisaabtii acmaashii la xisaabayo, walmiisaani miisaankii oo acmaashii miisaanka la saarayo, wasiraadi iyo siraadkii oo la gudbayay, iyo waljannati jannadiiya, iyo wannaari naartii. waxaas oo maalinka qiyaamo kulansadoo dhan in la aamino wey, taasaa rumayntiiya. wa macna aliimaani rumaynta macnaheeda bilqadari qadarta la rumeeyo ictiqaadu annamaa shay kasta annamaa kii qadara ilaahay uu qadaray humaaga fil azali azalkii iyo waqtigii hore ilaahay wuxuu uu qadaray laabudda inaan laga maarmin oo la aamino weeye min wuquucihi dhicitaankiisa. waxa ilaahay azaliga uu qadaray inay dhacayaan oo qasab ay tahay dhicitaankeedu inaad aamintid waa. wamaa kii lam yuqadir uusa qadarin ilaahay humaaga oo azaliga ilaahay wuxuu uusa qadarin yastaxiilu inay mustaxiil tahay oo suurtagal aysa ahayn wuquucuhu dhicitaankiisu inaysan suurtagal ahayn oo la aamino wey. macnaha waxa ilaahay qadaray inay dhacayaan waa inaad aamintaa, waxa ilaahay qadarinna inaysan dhacayn waa inaad aamintaa. wactiqaadu iyo in la aamino ana allaha ilaahay qadara inuu qadaray alkhayra wanaagii iyo washara wixii xumaa qabla khalqi lkhalqi makhluuqa dhanba intuusa abuurin ka hor ilahay uu qadaray. wa ana jamiica alkaa'inaati waxyaalaha oo dhacaya oo dhanna waxyaalaha ahaanaya oo dhan dhammaantood inay ahaa biqadaa'ihi ilaahay xukumkiisay ku ahaanayaan iyo wa qadarihi ilaahay qadartiisa ayay ku ahaanayaane wax ayagu iska ahaa karo iska dhici karaahi ma jiraan. faslun intaas casharkeenu ku joojinaa. wallahu subxaana wa tacala aclam.